أنا مدعية فرحة حسن إسماعيل كان صعود دكتور سكرتير جوري فرحة فرحة آدي قالية وحلا له خلو يعني ما نقول إنا ويا كعرمو بني رجلنا مدحويني ما لكم الشرف آدي قالية ولا برودي سيدا يعني هو يدا يكلايت هاي سيدا هو يدا إن الله تلوج شتى سقرح بدنا نصلانتي أو نلسود وين مير والبون صارقنا وحقبت كأقبتي حكومة آد وعده قفل بإنجيل صام الله العافية كأقبتين وحكم ذا نلشود الله ما عرفت جمهورية أنتي ترتي أرضي اللي يري سواق لما يحتوي محوين على كل يصير مدحتوي دنا بلادنا خري أنا ولقي أنا وقتك إن شاء الله فرد دنا هذا حتى تعال أنا قبلنا ودي إنه قشنك بعد يصير كبر ونغفري بهشة أي نسيبنا أنا بيصير ولي ما أنا يعني شانو قيل لنا قشنك تعال أنا قبلنا مدحتوي هذا يحكومة هذا آد بان محترمنا وحقبتك لقبتي أول واحد نسألين شريين ولا قضية لعبها على عليه وما ماشي كشقية لقوا ما يا ودل يراني ولا عليك بمشي كم ذا دل يرد شوكة أول قفل بحلورين شريين حكومته فرستجي وحي بلن قاعد إني دل يرد وحقبت أي وحسين الصد يعني الشقاء شقة دي أنت تسبب قلك بالنايت ويسيس تصدقين معها مرحتوي قفكي أرضين ويلا صودا مرسول عليك مثلين وفي هذا كيسون ولا دنيا هاي ده إذا كده ولا الله كان برشلونة مين كده دقيقة مو يعني هذه أبي دنيا ولا هاي ملاها واحد شرتي قفكي واحد بشري حفيزكي أنا قال لي قف المجرم ما شاء الله أديات بنا فرصنا أرضي ذي ما كنا قد شاء الله بإذن الله كريم أنا دم كذا صدوق لي وحنا دور هم حكومة وحي قبطي مسجد قرب بدل ما شاء الله صلاة الله يدفع قبل أنا الله نجا قبل أنا أول كل سنة وما تكلفن وأدي سوتشي تقرب بدل درتها وطول فرا ورث ترتر حتى عليه أدلي ولا ترتر لا بس راح تعلى هرمك تورد سوالان يوم تريدين بليد هذا قرب بناته واحد نقل شريون شرر هون كشركة وسيرة ما تعرف لو وسيرة ها أنا إذا بفدين من هالكي وسيركو أنا بوسيرتك هستي وهالكي وان كهلا ما شاء الله الحمد لله رب العالمين هون كيبانو قال لي وين فديني ووحان دير بوجي خبردون إن شاء الله بإذن الله ووحان ولقيان فيني إن شاء الله أول كي جنا ونقش كندون والد كي ما كان تجنا ما أنت دفر حد درت وحنا بغينا قاعدة بس كده يوم أنا يا كونترا فقط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمهورية سنة لو حيساق قبضت يو حي أنا صار جنينا انتهى يا جماعة الله وحنا الله الرحمن الرحيم مدحوني آد بنقول سلامنا آد بنا نوقف أحسن هاي مانك إلى بقى بشيء iyagoo aan ay la socdaan ardayda dugsiyada sare 5 dugsi sare koonfurdoodii ayaa mid walba in yar ka soo qaaday 2 iyo 3 waxay aad ugu farxeen dhalinyaradaas inay ogaadaan sida madaxtooyadu u shaqeyso madaxtooyadu inay tahay meel ay leeyihiin madaxweynuhu noqdo madaxweynuhu uu yahay meeshii inay xajacdi jirto inay wadaniga jirto inuu u dareemo inuu noqon karo berri halkan fadhiisan kara inuu noqdo wuxuu wax ku leeyahay uu arki karo markuu doono inaanay ahayn meesha meel qof madaxa ama qof weyn ugu gala ay dhalinyaradu la geli karto inay dhalinyaro gudaheeda ka shaqeyso ay runtii maanta arkaan qaariyada in yaroo ka weyn ayaa xafiisyada fadhiyay taasina waxay gelisay diido weyn oo ah inay iyaguna gashi fadhiisan karaan ay ka shaqeyn karaan waxay dareemeen inay meel ay ku faani karaan ay tahay waxay nala dareemeen oo arkeen in qofkii yimaada uu dareemayo Soomaaliland inay tahay meel madaxtooyadeedu ay tahay meel u qalantaa in ay Soomaaliland laga maamulo quruxdeeda iyo kala dambeynta iyo wada shaqeynta iyo ciidanka ilaalada sida u shaqeynayaan fiidid u geliyaan nidaamkooda xafiisyada cusub oo la dhisay meel horumar ka socdo sidoo dalkoo dhan uga socdo
ayay dareemeen runtii aad bay u cabireen inay meeshaasoo marmar baskaba laga leexin jiray bay yidhahdeen ka baqan jirnay. bismillahi raxmaani raxiim. aad iyo aad baan idiin soo dhaweynayaa, aad baan idiin soo dhaweynayaa dhalinyarada, aad ku soo dhaweynaya xafiiska madaxtooyada. waa markii ugu horeysay ee aan malanaya inay dhacday in dhalinyaro inkoo kale ay yimaadaan madaxtooyada ay daawadaan oo yimaadaan madaxtooyada xafiiskiisa fadhiyo ku shaqeynaya ugu soo galaan. waa markii ugu horeysay taariikhda dhacday. waxayna taasi muujinaysaa in ay dalkan dal la wada leeyahay ay tahay dal aad higsanaysaan madaxtooyada halka xafiisaha u sheegtay idinkuba halkan maalin qaarkii ka mida fadhiisan doontaan insha allahu tacaala. kolley qaar idinkeeda ka midun baa fadhiisan doona goor kasta waa noqote waayo dalka iyaga ah idinkaa mustaqbalkii dalka ah idinkaa mustaqbalkii ummadda ah dalka ay madaxtooyada iyo dimuqraadiyadda iyo mid walba furan tahay baa tihiin. marka aad baan idinku soo dhaweynayaa xafiiska madaxtooyada. you are very much welcome. aad iyo aad ugu soo dhawaada. madaxtooyadu waa madaxtooyadiinii, madaxweynuhu waa madaxweynihiinii, wasaaraddu waa wasaaradiinii, madaxdoodu waa dadkiinii. inta loo diyaarinayaa ee loo diyaargarooya ee lagu wareejinaya mustaqbalka ku sugaysa waa idinka.